Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaynu qaadanaynaa cashirkii saddex iyo tobnaad ee xisaabta asaaska. Waxaynu bilaabaynaa division oo ah u qaybi ama u qaybin. Waxaan soo qaadanay isku daridda iyadoo afar cashir ah. Sidoo kale waxaan soo qaadanay kala jaridda, sidoo kale afar cashir ah. Sidoo kale waxaan soo qaadanay isku dhufashada oo iyadana waxaan kasoo qaadanay sidoo kale afar cashir. Waxaynu qaadanaynaa isku qaybinta iyadana waxaan ka qaadan doonaa insha Allah afar cashir. cashirka hore waxaa waaye dividing whole numbers by whole numbers, sida tirooyin whole number ah ama tirooyin caadi ah loogu qaybiyo tiro whole number kale ah. Waxaynu qaadan doonaa dhowr tusaalooyin. Tusaalaha u horeeya waxaa waaye 84 loo qaybiyey labo. 84 oo loo qaybiyey labo calaamada sax ah waxaa waaye ama waxaa loo yaqaanaa u qaybi. Marka 84 loo qaybiyey labo waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno. Waxaynu isticmaalaynaa u qaybid dheer baan isticmaalaynaa oo ah 84 calaamada u qaybid dheer waxaa waaye qaabkaas waaye. waa qaabkaas marka waxaan sameynaa qaybta 84 oo koreeyaha hore waxaan gelinaynaa qaybta gudaha. 84 waxaan ku qoraynaa qaybtan gudaha. labadana oo loo qaybinaya waxaan ku qoraynaa banaanka aan ku qoraynaa. kadib waxaan sameynaysaa 84 waxaan qaybinaynaa laba qof. tusaale $84 waxaa loo qaybi laba qof u qaybi. sidee marka u qaybinay waxaan sameynaynaa hal god baan u shaqeynaynaa. godkan oo 8 ah waxaan qaybinaynaa labo. waxaan haynaa tiro marka laba lagu dhufto 8 noo keenaysa ama noo soo dhaweynaysa. tiro marka laba ku dhufto oo 8 keenaysa waan raadinaynaa. waxaan haynaa jadwalka labo. waxaan haynaa labo lagu dhuftay hal meeqa ahaan jirtay waxay ahaan jirtay labo. laba ku dhuf meeqa waa labo. haddana labo waxaan ku dhufanaynaa labo ku dhuf meeqa waa afar. haddana waxaan sameynaa labo waxaan ku dhufanaynaa saddex iyadana meeqo waa lix. mar kale labo waxaan ku dhufanaynaa mar kale shan. labo shan ku dhuf meeqa waa 10. aniga marka waxaan raadinaynaa waxaan dhahnay tiro markii lagu dhufto tiro marka labo lagu dhufto 8 ii keenaysa ma jirtaa. marka intaa kala raadinaynaa tiro markaas lagu dhufto labo 8 ii keenaysa ma jirtaa. way jirtaa waxaa waaye labo lagu dhuftay afar. marka labo afar ku dhuf meeqa waa 8. marka waxaan dhahnaa afar aan kor ku qoraynaa. marka afar kor nagu qor. afar kor ayaa ku qoraysaa. marka waxaan noqonayaa afar waxaa ku dhufataa afartan waxaa ku dhufataa labadan. afar labo ku dhufa meeqa waa 8. halkaan ku qoraynaa marka 8 hoosteeda afar 8 hoosteeda ayaan 8 kala ku qoraynaa. kadib waan kala jaraynaa 8 ka jar waa meeqo 8 laga jaro 8 waa eber. kadib waxaad sameynaysaa afartan ku hartay ayaa soo qaadanaysaa afartan oo saddeji. kadib mar kale sidaas habkaas sameynaysaa maxaa dhahaysaa tiro markaa laba aan ku dhufto afar ii keena ma jirtaa. tiro markaa laba ku dhufto afar ii keena ma jirtaa. isla meeshaan ka raadino laba markaa afar ku dhufto tiro markaa laba lagu dhufto afar ii keeni way jirtaa waxaa waaye laba lagu dhuftay afar. laba markaa laba ku dhufto meeqo waa afar. marka waxaan dhahaa kor waxaan ku qori labaan ku qoraya. kadib waxay noqonaya laba oo lagu dhuftay labo waa meeqo waa afar. hoostan ku qoraysa markaas. marka waxay noqonaya afar ka jar afar laga jar afar meeqo waa eber. marka waxay soo baxay afar laga jar eber tiro kale oo meeshan dhigo harta ma jirto. marka qaabkaas aan u shaqeyn. waxay noqonaysaa 84 loo qaybiyo labo. markii loo qaybiyo waxay soo baxday 42 ayay soo bixiyeen oo $84. haddana laba qof u qaybiyo qofkii wuxuu qaadanay $42 ayuu qaadanay. 42 lagu daro 42 meeqa waa 84. tusaalaha labaad waxaa waaye 94 oo loo qaybiyey saddex. maxaa sameynaysaa marka calaamada soo qaadanaysaa u qaybida. kadib waxaa sameynaysaa 94 waxaa gelinaysaa waxaa ku qoraysaa gudaha ku qoraysaa 94. saddexdan waxaa ku qoraysaa banaanka. intaa kadib waxaa sameynaysaa 94 waxaa u qaybinaysaa saddex qof. $94 ama 94 shay 96 shay ayaa waxaad u qaybinaysaa saddex qof. marka aan halgad oo shaqeyno waxay noqon marka 9 ayaa waxaan haynaa tiro markaas 3 lagu dhufto 9 ii keena ma jirtaa. tiro markaas 3 lagu dhufto 9 ii keeni aan raadino marka waxaan haynaa 3 oo lagu dhuftay hal meeqa waaye waa 3. 3 lagu dhuftay hal meeqa waaye waa 3. 3 lagu dhuftay hal meeqa waaye waa 3. haddana 3 lagu dhuftay laba meeqo waa 6. haddana 3 lagu dhuftay 3 waa meeqo 3 lagu dhuftay 3 meeqo waa 9. haddana 3 lagu dhuftay afar 3 lagu dhuftay afar waa meeqo waa 12. marka waxaan leenahay tiro marka 3 lagu dhuftay tiro marka 3 lagu dhuftay 9 ma jirtaa waa macnaha tiro marka 3 lagu dhufto
sagaal ii keena ma jirtaa haa waxaa waaye saddex lagu dhuftay saddex ku dhufa meeqa waa sagaal marka waxaan ku qoraa saddex aan ku qori waxay noqon marka saddex lagu dhuftay saddex meeqa waa sagaal sagaalka hoosteeda ku qor kadib sagaal ka jaro meeqa waa eber lixdan maxaa samaynaysaa lixdan soo qaadanaysaa haddana mar kale waxaa samaynaysaa tir markaas saddex lagu dhufto lix ii keena ma jirtaa tir markaas saddex lagu dhufto lix ii keena ma jirtaa meeshan aan ka raadino saddex markaa tira lagu dhufto lix ii keena waatana waa saddex lagu dhuftay labo waxaan kor ku qoraa marka waxaan ku qoraa labo marka waxay noqonaya labo oo lagu dhuftay saddex labo saddex ku dhufa meeqa waa lix labo saddex ku dhufa meeqa waa lix marka lix ku jar waa eber marka waxay noqotay sagaashan iyo lix markii loo qabay saddex qof waxay noqonaya qofkiiba soddon iyo labo qof soddon iyo labo shay ama soddon iyo labo dollar waxaa arta ka dhigo inay u nuqaato oo soddon iyo labo markaan ku daro soddon iyo labo markaan ku dhufto saddex waxay soo bixi sagaashan iyo lix ay soo baxayso tusaale ku xiga waxaa waaye boqol afartan iyo afar oo loo qaybiyey afar marka calaamadii soo qadan oo qaybida boqol afartan iyo afar waxaa ku qoraysaa gudaha boqol afartan iyo afar gudaha ku qor afartan waxaa ku qoraysaa banaanka kadib waxaad samaynaysaa boqol afartan iyo afar waxaa u qaybinaysaa afar marka waxay noqoni hal god oga shaqeyn karnaa sababtoo ah tira wax loo qaybinayo tirada qaybsanayo waxaa weyn tirada lambarka weyn marka waa inaan isticmaalnaa laba god aan isticmaalaynaa waxaan noqonay markaan tiro afar ku dhufto ii keenayso toban iyo afarka ii keenayso aan raadina marka waxaan dhahaynaa afar oo lagu dhuftay hal meeqa waaye afar hal ku dhufo waa afar lagu dhuftay labo oo meeqo waa sideed haddana afar waxaan ku dhufanaa saddex afar lagu dhuftay saddex waa meeqo afar lagu dhuftay saddex waa toban iyo labo haddana waxaan raadinaa waxaan dhahaa afar lagu dhuftay afar waa meeqo waa toban iyo lix marka tira maxaan dhahnay tira marka afar lagu dhufto ii keenaysa toban afar ma jirtaa meesha haddaan ka dhex raadino tira lagu dhufto afar oo toban afar ii keenaysa ma jirto laakiin waxaa soo dhaweynayo markasta waxaa qaadanaysa tirada ka yar hadda toban afar maxaa ka yar toban iyo laba ka yar marka waxaan dhahnaa tira marka afar lagu dhufto toban afar ii keena ma jirto laakiin waxaa jirta tira ay soo dhaweynaysa oo ah afar lagu dhuftay saddex afar lagu dhuftay saddex meeqa waa toban iyo labo marka waxaan qaadanaa saddex baan qaadanaa marka waxay noqonaysa saddex lagu dhuftay afar waa meeqo saddex lagu dhuftay afar waa meeqo waa toban iyo labo toban iyo afar toosta waxaan ku qori toban iyo labo kadib waxaan samaynayaa toban iyo afar waxaan ku jiraa toban iyo labo afar waxaan ku jiray labo afar labo ku jar waa labo haddana hal ku jar waa eber kadib waxaad samaynaysaa afartan ayaa soo qaadanaysaa afartan oo soo qaad marka waxay noqoni labaatan iyo afar ay noqotay marka waxaan dhihi afar lagu tira marka afar aan ku dhufto labaatan iyo afar ii keenaysa ama isoo dhaweynayso aan raadina waa sii wadayna meesha codta saddex marayna waa sii wadayna waxay noqonay afar lagu dhuftay shan waa meeqo afar lagu dhuftay shan waa labaatan afar lagu dhuftay shan waa labaatan haddana waxaan ku dhufanaa afar lagu dhuftay lix waa meeqo waa labaatan iyo afar maxaa raadina marka labaatan afar waxaa raadinayna labaatan afar marka waxay noqoni afar lagu dhuftay lix waa meeqo labaatan afar marka waxaan leenahay tira marka afar lagu dhuftay labaatan afar ii keenaysa waxaa waaye waa lix waaye marka waxaan dhihi lix lagu dhuftay afar waa meeqo waa labaatan iyo afar waaye kadib waxaan sameynayaa labaatan tiraan kala jiraa afar ka jar waa eber laba ka jar iyadana waxaa waaye waa eber marka boqol iyo afartan iyo afar markaan afar qof u qaybiyo qofkii wuxuu qaadanay si cadaalad ah soddon iyo lix ayuu qaadanay tusaalaha afraad waxaa waaye laba boqol labaatan iyo shan oo loo qaybiyo shan markaan ka shaqeyno laba boqol labaatan iyo shan oo loo qaybiyo shan gudaha waxaa ku qoraysaa laba boqol labaatan iyo shan qaybta banaankana waxaa ku qoraysaa shan kadib shan ay ku qoraysaa kadib waxaad samaynaysaa waxaad dhahaysaa tira markaa laba god aan shaqeyna laba god aan qaadano labaatan iyo laba waxaan dhahaynaa marka tira markaan shan ku dhufto labaatan iyo laba ii keenaysa ma jirtaa aan raadina haddii kale isoo dhaweynayso marka waxaan dhahaynaa shan waa lagu dhuftay hal waa shan oo lagu dhuftay labana waa toban shan lagu dhuftay labo waa toban shan oo lagu dhuftay saddexna waa meeqo waa toban iyo shan lagu dhuftay afar waa meeqo waa labaatan waaye shan lagu dhuftay
shan waa meeqa waa 24 waa 25 marka aniga waxaan raadinaynay 22 22 marka meesha noo muuqato maxaa sameynaa marka waxaa noo soo dhaweynaya 20 aa noo soo dhaweynayso marka waxaan qaadanaynaa 4 sababtoo ah 5 lagu dhuftay 4 waa 20 5 lagu dhuftay 5 waxaa waaye 25 waa 25 marka tiradana waa dhaxaysa marka midda yar ayaan qaadanaynaa oo ah 4 waxay noqon marka 4 lagu dhuftay 5 waa meeqa waxaan qaadanaynaa 5 waa 20 kadibna 20 iyo 2 waxaan ku jaraynaa 20 2 waxaa ku jirtaa eber waa 2 laba ka jar meeqa waa 4 laba ka jar meeqa waa eber kadib 5 soo qaadanaysaa kadib waxaad samaynaysaa 5 ka soo qaadato waxaad dhahaysaa tira markaan 5 ku dhufto 25 iyo keena waxaa ugu jirtaa waxaa waaye 5 ku dhufo 5 lagu dhuftay 5 waa meeqa waa 25 kadib 5 ku dhuf meeqa waa 25 hoos ay qoraysaa 25 kadib waxaad samaynaysaa 5 ka jar waa eber laba ka jar meeqa iyadana waa eber markay noqotay 225 markii 5 loo qaybiyo waxaa soo bixi 45 ama 225 oo dollar baa waxaa loo qaybiy 5 qof qofkii wuxuu qaadanaya si cadaalad ah 45 ayuu qaadanaya tusaalaha ku xiga oo lixaad waxaa 360 loo qaybiyay 6 360 waxaa qaybinaysaa 6 waxaa qaybinaysaa marka waxay noqonaysaa 360 gudaha gasho 360 waxaa qoraysaa gudaha 60 waxaa qoraysaa banaanka kadib waxaad samaynaysaa 360 waxaa qaybinaysaa 6 marka waxay noqonaysaa laba god aan isticmaalo laba god hore aan 6 u qaybinaa marka waxay noqonaysaa 6 marka tira loo qaybiyo lagu dhufto 36 keenaysa ma jirtaa waxay noqon marka 6 ku dhufo waxaa samaynaysaa marka 6 lagu dhuftay 6 meeqa 6 ku dhufo meeqa waa 36 6 ku dhufo meeqa waa 36 kadib waxaad samaynaysaa 6 ka jar meeqa waa eber 3 ka jar ayadana waxaa waaye waa eber maxaa ku saaray ebertan ku saartay ebertan waxaa laba mid samayn kartaa inaad maadaama ebertan hadda soo qaato oo faa'iido lahayn waxaad samaynaysaa kor ayaad geynaysaa inaad kor geyso qaabkaas oo ku furan tahay ama inaad samayso ayaa waxaad samayn kartaa sidoo kale inaad soo qaadato sida tiro kale aad dhahdo tiro markaan 6 ku dhufto eber iyo kamid tahay waxaa waaye waa eber kadib aad dhahdo eber 6 ku dhufo waa eber kadib kala jar eber ka jar waa meeqo waa eber marka waxay noqonaysaa 360 markii 360 markii loo qaybiyo 6 waa 60 bay noqonaysaa